ninka hadduu ku imaado asagoo nadiif ah albaabka ka bixi u soo qabee qolka ku soo cid markaa u soo qabaysa khali yatacallam inuu barto way nadaafad hadduu maalin kasta macawiis jadalacsan kuula imaanaya macawiis u soo gad dharka hadda jiifka aad u soo talo maalin dirac soo ma xiranaysa asagana maalinka kale oo in dharka jiifka qurux badan ku xirtaa haween qaaro ninkooda sheekh hay wala ninkaada sheekh aduu dadka kale u sheekh biyo badu sheekh ku yeen sheekh maxaa u dhahaysaa haya xabiibi ii waran waan ku xiisay soo dhaqso haweenka qaar waxa arki guriga ay joogtaa sidii askariga u socon babba subhanallah inta rajul wala mara ma qof dumar aad timsaninaate waa inaad dariiqa hadal zawjkaada oo la hadasho aad garanaysid hadda waxa laga yaabaa inuu ninka telefoon ku soo diro halo haya intee maraysaa يعني ما قرناش ترتيب سي لو هذا الطريق رومانسيه هيا حبيبي كيف قفك انه كل فدي لمره وانه مقلو وين اشاره لهذا طريقه يعني نينك لو لا هادلو يعني waxa isku garanaysaan isku la hadashaan qofka kala fahmaynin hada anaga waxa weeye sawdki naagta ayaan kiininka ka dheer sawdkeeda ka dheer ayada ninka qaylideeda lama qadaysan qaylidiisa lama qay horta tabiicadaas waa inaan iska bedelnaa waa in ma aragtay subhanallah labada qof ma aragtay qofta dumarka ay ogaatay inay qof dumartay waa ina ogaatay awaamirta qaadanaysid wixii loo amra qaadanaysid kulli shay waa daruuri midda labaad ninka zawjkaada markaad telefoon kula hadlaysid usluub ay jira qofka loo la hadlo maxaa dheer telefoon ma ku soo diro hay salaam calaykum abu abdallah misa haween qaaro ninkooda sheekh hay wala ninkaada sheekh aduu dadka kale u sheekh biyo badu sheekh ku yeen sheekh maxaa u dhahaysaa هيا حبيبي إيه ورا وانكو حيسي صوت أقصى وانكو سوى يريد أنكو تاغنه ما بس ما في مشكلة وإن طريقة يعني زوجينك أسكول هذا الشان وصوت خفي إيجرته بهذه الطريقة مركا قفك مشاعر فيش إنه تعبيريه وضروري ميدا كالي قفك ما ننكو قهر الشمعة قولي قاعد يغني الشمعة وادقرن إيسان كاندل وإن كاندل شدتي قولي قدن وهدوي هاي عرفت وحي كقادن حياة زوجية وح آد وينك قادنيسا دور وينك قادتا مركا يا أختي قولي قاعد ينقن مستودع ستوري ينقن لأن بالمثل زوجك مالك أحد وحالقيه إنه جعل إنه جوه لكن ظروفته ما سامحيش إنه قولي جوه وحي يقول سامحين قولي يا نظافة ملهن المهي ودن ملا ترتيبين ولا ما أدبين أبدا مالك وزوجك هذا قولي جوه الماء أنت أقول بستيت وقت في عن ساحي الماء كدور ديان إسكجوج هوينك قارح أم لنا الماء وين ما رتلوسي جعلان لا الماء وين متأدبين يهين ولا بيس درفي على الأخير ساحي هذه زوجك هذا تايم إسلاقاته الماء أنا وقت ماني باتسين يسي الماء إذنكي أباه وقت أقاضتان لأنه الماء حق بأبوت كليين لكن وحلو باهني هاي مركز إن أضقف نظام سن ومرتب على مدة لو حلو باهني الصداقة صداقة وحاوي لبض قف معاملة صاحبني ماذا كدحيس صاحبني ماذا وحادي لا أكثر لبض قف مركي آدو كلام قنيهين كلام قناشة بدن إسلا هذا لبض قف آد إسكولها الدين أنا جوحنا قنا سبحان الله هو يا شيء أنت سألك مقنان جري 8 سنة لك مقنان جري 10 يا أختي إن 5 سنة 4 سنة 6 سنة كام متى إسلام ولا سوا صعب والله إنك استهدى ظروفها كيران لبض قف إني إسلام ولانين لكن أنا كصومالي أهان بهذا يد وحين وبضتي إن كلا نولاد حتى قف الدمرة وحيقولي هاي وكينين نينك يوي مانين تبر وما هي سلبسكي يو كنترول يحس ما بك بحكري لا يا أختي والله يعني زوجته وحي شرفي عزي كلنا لكم زوج كذا اللي جو ولا بسني نفت هذا اهتمام سيني أضيق إسئلالني ما شاء الله تبارك الله مركا وحاد حاوزا زوج كذا حتى هدو كل جوجن إن أد مركز تا تلفونك إسكول حريرتان ساحة لدينا أو قاتان لبدا لنا وضروري جدا وأرين آد مهم قبل 6 بريكون قبل أي ما تحي وتري نينكيجا وحكستو إسياي تري ما أنت وحربتو أنت سميه وانكو سمين يعني زوجك هذا مالي وحاجته وكافر حين وكلها وحد وانت طلب أي شيء وبعد طلب برينا ودورك
marka adiga waxa loo baahan yahay inaad kaga nixisid waxyaalo qaar kaga nixisid hadiyooyinka kale hadiyada u keeni ma sha Allah tabarakallah وهديدا u keenay wuxuu fiirinayna u keenay subhanallah hatta zawjkaada markuu bixayo dhunkashada madaxa ka dhunkanaysi taksib al-ajr dhunkashada yani maxabada iyo zawjeenka waa noocyo badan waa dhowr iyo 20 nooc maxajdan ma aragtay dhunkashada xariise mid jecel leh mid soo noqoyda hayga dheeraaneen fi ashkaal wa anwaa kullaha marka qofku waxa loo baahan yahay dariiqa muamala zawjiya ina baratid hatta habka zawjkaada ma aragtay oo la soconaysi haweenka qaar waxa arki guriga ay joogtaa sidii askariga u socon subhanallah inta rajul wala mara ma qof dumar aad tamsaninaate لازم طريقه الكلام حتى اداب الكلام كو inaad garanaysid qofka dumarku waxa loo baahan yahay afkaaga iyo nadaafadaada ina ilaalisid waxyaalo la isticmaala jiraan heelka afku carfinaya qorfaha afku carfinaya xabasowdada afka u fiicanta waa daruuri jiddan waxyaalahaas waa loo baahan yahay waxaan wadaa wax kale oo lagu isticmaalo musqusha oo nadaafada qofka mahbalka lagu nadiifiyo mahbalka waxaan ka wadaa riximka yaani qofka basharka labada meel oo ugu infection badan waa farjiga iyo afka labada qof waa inuu qofka ka dadaalaa marka waxa loo baahan yahay nadaafadaada inaad ka dadaashid markasta nadaafadaada inaad ka dadaashid waa very important qofka dumarka marka tahay ninkaagana nadaafada waa inuu ka dadaalo yaani markasta aniga waxaan ka hadalnaa naagaha laakiin ani saan arka haweenka Soomaali way sabar badan yihiin waa dad daxiya waa dad sabar badan ninka hatta haduu ilmo lahayn way u safri haduu xoolo lahayn way u safri hadii laga maaqanya way safri dib badan aan qabnaa laakiin ilaahay janno ka baryana insha Allah ina dadaashaa la rabaa xamlada ducaa waalid ee xajka iyo umrada waxay bisha Ramadaan sameeyaan ka umraysiga walaalaha doonaya in loogu umreeyo waalidiintooda sida hooyo aabe awoowo ayeeyo iyo kuwa kale la halmaala ee waalidiinta iyadoo ay ku sameysay sanadkani qiimo dhimistii abid ugu ballaarnayd laga bilaabo taariikhda 20 bisha Shabcaan amaba 1 bisha 3 2024 haddaba adigoon isdhiban wixii faahfaahinay taasi dheerna waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda dugsiga barashada quraanka kariimka ee Daarul Cilmi Islamic Online waxa uu quraanka kariimka ku barayaa qaab online ah adiga oo jooga gurigaaga amba goobtaada shaqo meel kasta oo adduunida aad kaga nooshahay malaha da iyo jinsi u gaar ah oo rag iyo dumarba ay dhigan karaan dugsiga waxyaabaha aad ka baran karto waxa kamid ah xifdiga quraanka kariimka ah higaada carabiga iyo waliba tafsiirka quraanka kariimka waxa intaasi ku dheer oo dugsiga aad ka helaysaa barashada ahadiista nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam iyo adkaarta casharada waxa lagu qaadan doonaa aaladaha Skype iyo Zoom balankeenu waa inaad iska diiwaan geliso oo aad ka mid noqoto ardayda Daarul Cilmi Islamic Online wixii faahfaahin ah kala soo xidhiidh lambarada shaashada kaaga muuqda